kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo inoo daawanaysaanba ku soo dhawaada channelka Edlaw Sports Channel. maantana waxaan ku eegi doonaa kulamada xiisaha badan ee caawa laga ciyaari doono tartanka UEFA Champions League, gaar ahaan kulanka ka dhici doona garoonka Old Trafford. Manchester United ayaa soo dhaweey doonta Paris Saint-Germain ciyaar ka tirsan wareegga isreebka 16 ee UEFA Champions League. labada kooxood ayaana doonaya inay u gudbaan wareegga siddeedamaadka. hase ahaatee kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxaa ka maqnaan doona xidiga muhiim ah sida laacibka reer Brazil Neymar oo mar kale ka jabay mid ka mid ah lafaha yaryar ee cagta lugtiisa midig. ugu yaraan 10 isbuuc ayuuna garoomada ka maqnaan doonaa, xilli isla dhaawacan oo kale uu ciyaaro fara badan ku seegay sanadkii hore. sidoo kale PSG ayaa caawa waxaa ka maqan goollalyahooda Edison Cavani oo dhaawac dhanka muruqa ah ka soo gaaray ciyaartii ugu dambeysay oo gool iyo eber ay kaga adkaadeen kooxda Bordeaux. goolkaas oo ahaa gool kulaad ayaa waxaa dhaliyay isaga. sidoo kale xidiga reer Belgium ee Munier ayaa seegi doona ciyaarta caawa, halka kooxda Manchester United ay ciyaartooyda dhammaan u badqabaan marka laga reebo xidigaha Antonio Valencia iyo Matteo Darmian. kadib markii la isku beegay kooxahani dhammaadkii bishii December ayaa dadka ciyaaraha xiiseeya intooda ugu faraha badan oo ay qayb ka yihiin taageerayaasha Manchester United waxay aaminsanaayeen in Paris Saint-Germain ay si fudud ku dhaafi doonto kooxda Manchester United, xilligaasi oo majraa u hayay Jose Mourinho kooxduna ay ahayd mid la dhacaysa. hase ahaatee tan iyo intii uu la wareegay Ole Gunnar Solskjaer kooxda Manchester United ayaa wax weyn isbedeleen, isagoona 11 kulan ee uu kooxda hogaaminayay 10 jeer adkaaday, halka kulanka kalena uu barbadhac galay. ilaa iyo iminka wax guuldarah ma uusan la kulmin. saadaashu ayaana waxa iminka ay u badan tahay in kooxda Manchester United ay ka gudbi karto kooxda Paris Saint-Germain ayna ka qayb gali karto wareegga siddeedamaadka ee tartanka UEFA Champions League. dhanka kale garoonka Olympic Stadium ayaa kooxda Giallorossi Roma waxa ay ku qaabili doontaa kooxda ka dhisan dalkaasi Portugiiska ee FC Porto. waa tahay daawadayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa maanta. waa saaxiibkiin Adna Edlaw oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.